kusoo dhawaada Somali Tutorials oo ah channel aad ku baran doontaan programming languageska, networking-ka iyo waxyaabo badan oo aad faa'iido u leh oo ku jira information technology field-geeda. Bismillahirrahmanirrahim. Kusoo dhawaada Somali Tutorials. Waxaan kusoo jirnay programming languageska gaar ahaan C programming-ka oo aan kasoo hadalnay cashirkii ugu dambeeyay oo ahaa cashirkii labaad oo aan uga soo hadalnay hordhaca sida faa'iidooyinka ay leedahay oo ah importance-ga muhiimadda iyo characteristics-ka ama sifooyinka. Maanta waxaan ka hadlaynaa cashirka saddexaad. Waxaan uga hadlaynaa haddii aad leedmo structure of the program ee sida dhismaha qaabka programka sida uu dhisan yahay. Anagoo bilaabin doona programka ugu horeeyay waxaan u kala qaadi doonaa tutorial-ka oo aan ku bixinayno C programka laba qaybood oo ah qayb oo ah theory ah iyo qayb practical-ka ah. Waxaan noo bilaabanaysa maanta qaybtii practical-ka ah. Waxaan ku qori doonaa oo isticmaali doonaa programka sida waxaan ku qori doonaa Turbo C compiler ama Turbo C++, labadaba waad ku qori kartaa. Code block waa isticmaali kartaa, laakiin aniga hadda waxaan isticmaali rabaa hadduu adidmo application-kan kaasoo markaad practicenaysana aad u muhiim ah oo aad wax badan ku kala fahmi doonto. Waxaad kasoo degsan kartaa Google-ka adigoo ku qori doono Turbo C++. Marka uu kusoo dego waxay ku dhufanaysaa Start Turbo C++. hadduu adidmo waxaad arkaysaa shaashadda hortaada ka muuqata. Waxaan ku dhufanaynaa fileka. Marka hore aan kala fahanno qaabka loo isticmaalo software-kan ama application-kan qaabka u isticmaali lahayn. Fileka markaa ku dhufatid new-ga waa markaa window-ga waxay ku qori lahayd u baahan tahay new-ga ku dhufanee. haddii wax hore u qortay ay ku jiraanna waxaad isticmaalaysaa open. markastana waxaad meesha ka arki kartaa shortcut-ka isticmaali lahayd openka F3 caadi u furi kartaa. markaa ka bixaysidna waa ka alt x ka ugu bixi kartaa shortcut-ka. anaga hadda waxaan leenahay new. marka waxaan taabanaa hadduu alidmo F5 u taagan in shaashada dhan oo ay si fiican iskugu kaa qabato. muxuu ahaa geeskaana waa isticmaali kartaa calaamadaas. waxaan bilaabaynaa hadduu alidmo inaan qorno programka markii aan qorino waxaa u baahannahay hadhowta inaan isticmaalno fikrado oo marka hore inaad fahanto ah. qaybta koowaad waa maxay compiler hore usoo qaadanayo. compilation markaad samaynaysid programka iyo execution waa laba eray oo aad u maqli doonto intaa programka wadid. markii aad programka qortid waxaad u baahan tahay wixii qalad program ku jiro aad samaysay inaad aragtid oo kusoo saaro computerka. programkaagiina laga bedelo high language-ka aad ku qortay high level language-ka aad ku qorto loo bedelo low level language-ka loola diyaariyo in programkaas uu shaqeeyo. waxa shaqadaas qabto compiler waana software ku jira isla programkan. execution-kana waa arki doonaa hadduu alidmo. marka waxaan bilaabaynaa programka C waxaa lagu bilaabaa hash include. calaamadan waxaa u taqaanaa greater than iyo less than, laba calaamad waaye. dhexdooda waxaa lagu qori doonaa marka stdio.h. waan ka hadli doonaa oo faahfaahin waa bixin doonaa. waa maxay shaqada intaan ama sadarkan uu qabanayo iyo waxa aan ku bilaabayno. waxaa kaloo ku dari doonaa hash include conio.h. waa maxay labadan marka waa labada ugu muhiimsan ee programka marka aad u baahan tahay aad qoranaysid. marka waxaa la dhahaa preprocessor command. waxay u sheegaan compiler-ka waxay u sheegaan ama software-ka programkaaga dhisaayo waxay u sheegaan shaqada programka la qabanayo inta aan gudaha loo sii gelin programka. waxaana ku jiro header filena waxaa la dhahaa filasha functionska aad isticmaalaysid waxyaabaha aad programka isticmaalaysid meeshii lagu keedin lahaa ayaa ku jiro. inta kasoo bilaabo marka hash include waxaa la dhahaa preprocessor directive oo waxay sheegtaa
waxay sameysaa fileka waxay muxuu ahaa sameynaysaa hadduu alidmo fileka stdio.h oo laga wado standard input output header file waa file loogu talagalay in ay soo galaan wax alla wixii function oo programka ku jira oo qaabilsan qaybta inputka iyo qaybta outputka waan arki doonaa programka markaan galno marka stdio.h waxay taagan tahay standard input and output h taasna waxay u taagan tahay extension waayo waa dot header file waayo oo waxay tilmaamay inay file header tahay waxaad usoo gudubtaa hash include ayadana lagu bilaabo programka conio.h ama conio.h oo u taagan console input output dot header file waa isna header file kale oo qabta shaqooyinka ay weliba waxaa soo gali doono functions waan arki doonaa markaa programka galno aan marka hore dhamaystirno waxaan isticmaalaynaa main function main waa functionka ugu muhiimsan c programmingka weliba c programmingka kaliya maahane c++ ka xitaa waa gateka ama albaabka weyn oo programka laga soo galo mainkaas waa functionska oo dhan waxyaabaha oo dhan meesha ay isgeli doonaan waxaad u baahan tahay inta marka aad mainka qortid mainka dhexdiisa programka lagu qoraa waxaana la sameeyaa intaadan programka qorin curly braces calaamadahan waxaa la dhahaa curly braces program weyn ma qori doono laakiin waxaan sameyn doonaa un programka ugu horeeyey waxaana soo bandhigi doonaa shaashada program ama message waxaan dhigi doonaa hello well markaas ka bacdi waxaan leenahay get ch waa maxay muhiimadda marka intaan ay leedahay programka aan save garayna marka hore waxaad ka save garayn kartaa file save ama waxaad taaban kartaa f2 oo ah shortcut computerada qaar f2 si toos ah loo taabtaa computerada qaarna waxaa lala qabtaa functionkiiga f2 markii aad qabatid meeshan waa meesha aad ku save garan lahayd programkaaga marka qaabka programka loo save gareeyo waa mid aada muhiim u ah inaad fahantid tusaale programka magaciisa waxaan ku qoraynaa hello waxaa hello ka bacdi aad u baahan tahay inaad samaysid extensionka aan samaynayno waa .c daas waxay u taagan tahay in programkan aan qornay uu leeyahay c micnaheedu waxay tahay applicationkan waxaa lagu qoraa c++ iyo c da programka haddii aadan extension sameynin asaga wuxuu qaadanaa marka u qaadanaa c++ uu qaadanaa marka waa inaan anaga ka dhiganaa c deena oo aan hadhowti muxuu ahaa ku save garaynaa c extension marka aad save garaynaysid programka magaca programka aad ku qoraysid waxaa la ogol yahay keliya inaad samaysid space lama ogolo tusaale ahaan hello world daarata inaad save garaysid hello world inaad isku dhajiso labada eray ama inaad u dhexaysiiso underscore labadaas bisa la ogol yahay programka laakiin space lama ogolo oo waa arki doonaa hadda markaa space u dhexaysiiyo okay aan dhaho waxa uu leeyahay illegal file name hello space world.c waxaan u baahanaa marka inaan ka baxno muxuu ahaa spacekaas oo aan sameyno isku dhajino ama aan u dhexaysiino underscore oo aan siino hello world hadda waa uu qaadanaa programka waa uu noo save garaysan yahay waxa aan qorna marka waxay tahay hash include stdio.h kaasoo ah preprocessor waxaa la lahaa inta aanan programka la gelin programka meesha laga galo waa main meesha ugu muhiimsan intaanan maintaas la gaarin programka waxaa loo sheegaa failasha annaga functionska aan isticmaali rabno failasha lagu keedin lahaa waa inaan sameynaa softwarada qaar ama compilerada qaar oo lagu isticmaalo preprocessorka waa laga tegi karaa
laakiin hadda inta badan markaan sida joogno gaar ahaan ku isticmaalayno turboga siiga waa wax aad muhiim u ah inaan muxuu ah isticmaalno preprocessorka si functionadeena qaar ay u shaqeeyaan programka. stdio.h waxay u taagan tahay standard input output header file. waxaana soo geli doonaa hadduu alleednimo failasha inputka iyo outputka qaabilsan functionskooda. functionskaasa soo geli doonaan hash include oo iyadana ay geli doonaan functionada qaabilsan header fileka conio.h oo ah console input output. tusaale yaa soo geli doono console input output. waxaa soo geli doono getch. waxa ay qabataa shaqada getch intaan gelin marka hore printf waxa ay qabataa shaqada ah in message shaashada aad soo saarto. program markii aad rabtid inaad qortid oo message ah, ha dheeraado ha gaabnaado, message markaad shaashada soo saaraysid waxaad isticmaalay function ah printf markaad isticmaashid waxaad u baahan tahay inaad furtid bracket. markaas ka bacdi waxaad u baahan tahay inaad isticmaashid double quote calaamada la dhaho oo ah calaamad string inaad qoraysid meesha ama aad ku qoraysid war. calaamadaas labada muxuu ahaa quote ah dhexdiisa waxaa lagu qoraa wax alla wixii message aad samaynaysid marka inaad shaashada soo saaritid. intee lagu qoraa functionka printf waxa ay leedahay laba bracket. tusaale haddii aan inta ku qoro waa ka tiri doonaa hadhowti programka lama ogol inaad ku qortid. printf waxa ay u qoran tahay sidaan dhexdeeda marka waxaa lagu qori doonaa calaamadan double quote-ka. markaan sameyno dhexdeeda waxaa ku qoranaa wixii war aad rabtida marka ku qoray haddii aad shaashada soo saaranaysid. markii aad adwaalidmo dhammaysid printf-ka waxaad ku qori lahayd waxaad u baahan tahay inaad samaysid semicolon shaqadiisa waxa ay tahay terminator aa lahaa. terminator maxay tahay inuu dhammeeyo ama uu soo gebagabeeyo laynka programka adiga aad ku qorayso inuu joojiyo qaybtaas inuu joojiyo. tusaale programka oo dhan hal meel waa ku qori kartaa oo ah sida aan u socdo programka getch-ka waxa dhan inta waa ku qori karaa macluumaadka. laakiin program ahaan good programmer ahaan macnaha ma sameeyaan. semicolon-kana waxaa loo isticmaalaa printf inay soo dhamaatay shaqadeeda. terminatorna waa wax aad u muhiimsan. haddaa ka tagtana waa u diidi doonaa wuxuu dhihi doonaa compilerkaaga waxaa qalad ka jira printf-ka oo ah terminatorkeeda maqan. getch sidoo kalena waa samayn doonaa. getch maxay qabataa marka? printf waxa ay qabataa shaashada in ay wax kuu soo saarto. getchna waxa ay qabataa wixii shaashadaas saaran inay shaashada ku celiso. micnaheeda haddii ay ka maqan tahay getch meesha shaashada wax waa lasoo dhigaa laakiin shaashada messageka lagu soo dhigay ma ku ceshmaayo oo muxuu ahaa waa arki doonaa hadhowti markaan program ka shaqaysiinayno kuma ceshmi doono. tusaale marka programkeena hadda waxaan rabnaa inaan dhahno wax qalad maa ku jiro inaad jeegareynaan rabnaa. marka programka markaad jeegarinaysid compileka waa taaban kartaa alt f9 compile aan leenahay. programka waxa uu leeyahay hadda warning oo hal digniin meesha soo gashay. halka digniin oo meesha soo gashay waxa ay tahay function should return value. mainka waxaan kasoo dhigaynaa void inay tahay. programka markaas waxa uu leeyahay hadda programka waxa uu leeyahay wax cilad ah ma ku jiro sababtoo ah mainkan void marka ay tahay mainka inay empty tahay ayuu sheegaa. waa baran doonaa programka qaybta dambe arki doonaa hadduu alidmo markaa gaaro data typeska. void main markaad isticmaashid inta badan turboga wuxuu u qaataa void in la sheego laakiin programmada muxuu ahaa compilerada ka duwan aad u sahlan tahay inaad muxuu ahaa void kaliya ka tagtid iyaga inta badan muxuu ahaa ku dhisan. programka markii aan compile dhahnay waxaad soo baxaya laba qaybood inaad fahatid. labada qaybood waxa ay tahay qaybna waxa ay tahay warnings oo ah wixii digniin ah. qaybna waxa ay tahay errors oo ah wixii qalad oo programka ku jira. lines oo programka compilation ku sameeyo waa 462 oo line waa fileshana waa 462 totalka.
programka nooca uu yahay in lagu guuleystay oo in macnaha qalad uu ku jiro meeshan waxaa ku qoran success press any key si aad uga baxdo markaas ka bacdi waxaa leenahay programka noo shaqaysay oo wixii shaashada noo soo saaraan meesha ku qoranay meeshaan waxaa uga jeedaa fileka meeshii lagu save gareyn lahaa oo ah tabo macnaha sida ama local c-ga tabo 3 ay ugu qoran aniga kabacdi waxaa geli pin kabacdi waxaa kasii tegay tc hello world noo soo baxday shaashada marka hello world shaashada waxaa noo soo saartay printf waxaa shaashada kusii celisay get ch waa inaa meesha fahanaa waa tusaale get ch aa meesha ka tirnay maxaa dhacaya fiiri marka waxaa meesha ka bixinaynaa get ch maxaa dhacaya marka programka compilationka wax qalada ma ku dhacayo sidoo kale runtimeka markii aad tagtid programka shaashada wixii la saari lahaa kuma ceshmaayaan mujida si fiican u fiiri shaashada run markii aad dhahdid wixii shaashada waa la soo saari lahaa laakiin functionkii shaashada ku celi lahaa ayaa maqan waa macnaha marka muhiimadda get ch ka ay leedahay waxa ay tahay programkaaga inaad shaashada wixii aad soo saaratid aad ku celishid meesha ku celisid oo ah run markii aan dhahno programka waa ka hello world 1 2 3 4 5 waxaan daabacnay programka hello world 5 mar 5 mar aan daabacnay waxa ay tahay intii mar oo aan dhahaynay run ayadoo programka aan la haynin wixii shaashada ku celin lahaa programka uu daabaca laakiin shaashada wax ku celiya ma haysan waan baran doonaa function kale waxaa jiro mar wixii aad daabacday in mar labaad aysan shaashada kuusoo korin functionka ku baran lahayn waa clear screen waa arki doonaa hadduu alidmo marka maanta waxaa intaas kusoo gabagabeyneynaa hadduu eebaydmo programkii ama structure oo aan uga hadlaynay c programmingka gaar ahaan program kooban oo aan kusoo bandhignay hello world waa mahadsantihiin daawashadiina